xilli 20kii bishan oo madaxweynaha Jubbaland Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe daahfuray shir lagu heshiisiinayo siyaasiyiinta ka soo jeeda deegaanada Jubbooyinka oo ku kala aragti duwanaa dhismaha maamul goboleedka Jubbaland ayaa waxaa maanta magaalada Kismaayo soo gaaray siyaasiyiin si weyn looga yaqaano deegaanada Jubbooyinka kuwaas oo uu horkacayo ex-xildhibaan Maxamuud Sayid Aadan waxaana garoonka diyaaradaha magaalada Kismaayo ku soo dhaweeyay madaxweyne ku-xigeenka koowaad ee Jubbaland Cabdullaahi Sheekh Ismaaciil Fartaag iyo xubnaha labada gole ee maamul goboleedka Jubbaland soo dhaweyn kadib waxaa howlka nasashada saxaafadda kula hadlay wasiir ku-xigeenka amniga iyo arrimaha gudaha Jubbaland Cabdirashiid Janan iyo madaxweyne ku-xigeenka koowaad ee Jubbaland Cabdullaahi Sheekh Ismaaciil Fartaag. Alhamdulillah kafa wa salatu wassalamu ala man la nabiyya ba'da wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. runtii Ilaahay mahad iskale subhanahu wa ta'ala بعد المهد كدب ما أنت فرحت ورهينه إن أي نوصل ديران ولا لهن صاحبين سياسة يعلو وبعنس صاحب كنا هاي وسياسيين وكسب دير شركي واتنك بشكل فرم ولا كسمايو هذه أدوان فرح سنة ولا لهن نوع مادان أي كان سويني horeyna isku siyaasadii isku aragti ka ahayn systemka guud ee Soomaaliyeed ee siyaasadeed iyo midda Jubbaland intaba waan hore iyo mar hore iyo mar dambe waan ka wada shaqeynay danta ummadda Soomaaliyeed iyo horumarka iyo dowladnimada iyo nidaamka wanaagga farxad weyn bay noo tahay inay yimaadaan Allaah inoo keenay mahad iskale subhanahu wa ta'ala oo si nabadan isku keenay Allaahna walaalahan soo dhawaada ku soo dhawaada dadkiina iyo dalkiina. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبين نستعين على أمور الدنيا والدين صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ما أنت ومالين أديات لوين محايا لي وعن وصل بيري ولو يمت سياسيين غير جبلانة ومج يبقى حد بكله لو كان جبلان وأن سوين مدبر iyagoo ku maqnaa shaqooyin ay Jubbaland ay u wadeen dhinacooda ka waday ayuu naga qayb qaadan doona hadduu Ilaahay yiraahdo howlaha aan ku jirnay ee shirkii dhawaan ka furmay howlka weyn ee shirarka magaalada Kismaayo siyaasiyiintan oo tiir adag u ah ama lafdhabar u ah wada hadalkii aan daahfurnay ahaana horena u sheegnay siyaasiyiintan u hambeynay iyaga hadda noo yimid iyo kuwa kale aan sugaynaba lafdhabarkii aan hore u tilmaamnay dhulka Jubbaland muxuu ahaa dibashiinteeda iyo u dhisidda maamulkeeda iyo ka wada qayb qaadashada horumarkeeda muhiim noogu ahaa walaahi maadii hadday maanta noo yimaadeen. ugu dambeyn waxaa goobta ka hadlay siyaasi Maxamuud Sayid Aadan oo isagu hogaaminayay wafdiga soo gaaray maanta magaalada Kismaayo. xilligan kulul oo waqtiga dheer la soo dhaweysay waxaan u mahadcelinayaa madaxweyne ku-xigeenka Jubbaland wasiir Cabdirashiid Xasan Cabdinuur wasiirada kale joogo xildhibaanada sharafta leh ee reer Jubbaland salaadiinta maamulada heer degmo iyo heer gobol ciidamada saraakiisha bahda saxaafadda وزير الدولة وزارة الرماها جودها فدرالكا عبدالرشيد حدق وصاحب فوق مدبر نسوي هذا شغالين إني هذا هو فرح سنة هاي إنه ما أنت تشوف جوجا هذا ما هاد إلهي باسكله ويدين ما هاد علينا ما هاد كذب وهاي لا توسعت كي لبعض سنة كي هراء نجتجي bishii September baan idin nimid waxa ka sii horeeyay shirkii degmada Doolo gobolka Gedo bishii 8aad ka dhacay oo isfahanka iyaga mas'uuliyiinta Jubbaland iyo ragga iyaga ka aragtida gudisnaa uu ka soo bilowday maalinta ilaa maanta waxaanu ka shaqeynaynay in maalin kama dambaysa la gaaro oo khilaafka inoo dhaxeeyo oo meesha ka baxayo. siyaasiyiintan maanta soo gaartay magaalada Kismaayo ayaa ka qayb gali doona shirka lagu heshiisiinayo beel ka mid ah beelaha gobolada Jubbooyinka kuwaas oo ku kala aragti duwan dhismaha maamul goboleedka Jubbaland. Saabir
cabdulqaadir warsame saabir honesty telefishinka caalamiga Soomaali Cable magaalada Kismaayo.